dadweynaha ku nool wadamada dunida waxa qolo waliba ay leedahay dhaqamo iyo caadooyin u gaar ah inkastoo ay jiraan meelo ay isaga mid yihiin oo dhaqamadaasi qaarkood ay iska soo galaan. dadka Soomaalida ah waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah oo reer guuraa ah, kuwaasi oo waxa ugu weyn ee ay raadiyaan ay tahay meel biyo iyo baad leh oo xoolahoodu ay daaqaan. wadanka Hindiya gobolka ku yaala ee lagu magacaabo Rajasthan, dadka ku nool deegaanadaasi waxay leeyihiin dhaqan inta badan geela lagu tartansiiyo, kaasi oo sanad walba la qabto. waxana tartankaasi oo ay kumanaan dad dalxiisayaal ahi ay ka soo qayb galaan loogu yeedhaa maharajaankii geela. markaynu ka soo ambabaxno tartankaasi geela, waxaynu haatan booqanaynaa dad reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ah, kuwaasi oo ka soo jeeda qabiilada loo yaqaano Ribaal. waana qabiilo reer miyi ah oo kolba u guura halka baadiye biyo leh. qabiiladani reer guuraagahi waxay degaan dhinaca galbeed ee gobolka Rajasthan ee wadankaasi Hindiya, gaar ahaan dhulka u dhow xuduudda Pakistan iyo deegaanada magaalada lagu magacaabo Jaisalmer. magaalada Jaisalmer oo ah magaalo qadiimi ah waxaa loogu yeedhaa magaaladii dahabiga ahayd. waana magaalo dhinaca ganacsiga muhiim u ah, waxaana waagii hore mari jiray dariiqii xariirta ee isku xidhi jiray bariga iyo galbeedka. xagga dambe ee magaaladani waxaa ka bilaabma dhul saxaro ah amaba labandegaan ah. marka qiyaas dhan ilaa 25 kilomitir laga baxo magaaladani waxaa ku taala meel ay hay'adda ka hortagga iyo joojinta saxaruhu ka samaysatay seero ama geedo lagu joojinayo fiditaanka ciidda saxaraha. dhulkan saxaraha ah oo ku fadhiya qiyaas dhan 3262 kilomitir oo isku wareega waxaa ku taala seero la ilaaliyo, kaasi oo ay ku nool yihiin xayawaano kala duwan sida shimbiraha iyo ugaadha kale. waxa ugu wanaagsan ee saxarahaasi lagu dhex mari karaa amaba lagaga dhex gooshi karaa waa awrta. awrtu waa gaadiidka ciidda jilicsan ee saxaraha dulmara, isla markaana leh adkaysi dhinaca gaajada iyo haraadka ah. dad badan oo dalxiisayaal ah ayaa jecel inay u safraan oo ay lama degaankaasi awrta ku dhex maraan. dadka reer guuraaga ah ee ku nool dhulka gobolka Rajasthan ee wadankaasi Hindiya, marka la rabo in la gaadho deegaanada ay degaan wax fudud ma aha, waayo maba laha meel ay ku nagaadaan. waana dad socod uu ku jiro oo kolba halka daaqsin leh taga. dadka dalxiisayaasha ah ee doorbida in ay soo arkaan dadkaasi waxay galaan safar dheer oo 100 kilomitir ah. waxaa taasi dheer in loo habeen dhaxo iyada oo awrta lagu safrayo. dadka reer guuraaga ah ee wadankaasi Hindiya ku nooli waxa ugu weyn ee dhibtu ay ka soo gaadhaa waa dhinaca biyaha xilliga jiilaalku jiro ee uu daaquna ingego.
biyaha waxay u doontaan ceelal deegaankaasi ku yaala kuwaasi oo dad iyo xoolaba loo aroor tago. dadka tuulo joogga ah ee ku nool saxaraha dhinaciisu badankoodu waa xoolo dhaqato. India waxay leedahay dhaqamo iyo caadooyin qadiimi ah iyo afaf kala duwan. qabiilka lagu magacaabo Rajpuri waa dad ku nool taandooyin iyo buulal ay ka samaysteen deegaano u dhow wadooyinka, halkaasi oo si joogto ah ay ugu nool yihiin. waa dad iska xamaasha oo milixda iyo bacsharadaha kala duwan u iibgeeya deegaanada kale. dadkani waxay alaabooyinka ku rartaan awrta oo ay u samaystaan carabiyado amaba buuriyo yaryar oo la yaab leh. malaha dadkeenu waa ka badow qaababka kala duwan ee geela looga faa'iideysto marka loo eego qaabka ay u rartaan dadkani xoolo dhaqatada ah.